وعلى ماريو بيها صدقوا بحيا maxaad ka wadaa maareeyo biyaha sadaqo bixiya maxaad ka wadaa بيها ماريو صدقوا بحيا عدة صدقة ku cabtaa marka waxa weeyaan biyaha sadaqa lagu timaadana hadii de ay joojin waayaan wax qof sadaqa qaadan sadaqa la siinayo oo waxa weeyaan aflagaade iyo xoog iyo muran iyo qabqab ku soo galaya wali ma nimankan hadlaya hadii biyaha cabaan ee marayaha dhaliilaya biyuhu sadaqay kugu soo gaaraan oo ducee wakaalada biyaha ma waxaad u taqaanaa inay cid gaar iska leedahay wakaalada iyo biyuhu miyuuna qaranku mas'uul ka hayn yaa iskala markaa eedda ra'iisul wasaaruhu inuu yimaado Soomaaliya eedda yaa qaadan eedda eed isu guud marka loo eegay kolay xukuumadda imka talin suma eedda yeelanaysa bartan iyagu ma ku noqonaysaa xukuumaddu maxay eedda u yeelanaysaa dalka xukuumadda hore ka tirinayso la saanad soo banisay xukuumadda hore ma eedda lahayn waa hagaag dawlad halka naga daawanaysaa telefishinka caalamiga sahan waxaan hay wariyay eed xidig waxaa dhinacayga fadhiya siyaasi maxamed Qardaawi oo ku soo dhaweynaya maxamed oo saad la socoto waxa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo kamid ah Soomaaliland ku soo wajahan ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya balse aad aragtaa arintaasi Qardaawi waxa weeyaan ra'iisul wasaaruhu imaashiisa waa horta waa nasiib daro oo dhul Soomaaliland 40 sano ay ka talineysay maanta in mas'uul Soomaaliyeed yimaado ama dawladda insaaniyay ay timaado waxa weeyaan waa nasiib xumo aad baan uga xumahay imaanshahaas madaxweyne ninka ra'iisul wasaaraha imanaya daawac bay ku noqonaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland xadkeeda iyo xuduudkeeda marka nimankii deeyna lahaa Minnesota laga difaacaya dalka oo ninkii wasaaradda arrimaha dibadda haystay Donald Trump baa waxa weeyaan Mareykan baa baajinaya waxa weeyaan xamse baajinaya yaanu su'aasha isweydiinayo kaliya waxa weeyaan ilaa xalan isweydiinay dalka iyo waxa weeyaan dadkii aanu dhiibnayba oo waxa laga maamulaya Mareykan baa laga maamulaya too amnigeena iyo security-geena iyo xadkeena xuduudkeeniba Mareykan baan ku rajinay su'aasha talabada مسؤولية واحد يدين حكومة دون تراهضو سكلا نوعينا لكن ده يعني نراهض أمريكان بانو يعني حتى هلك كيجنا يا ترى ونسيب ترى أدون حمار مركادة مع شهاسي رول بوجاب تلكين وحوين هاي سنة يوم ورا وهي سكلا مركا إدا رئيس الساروه إنه يمهد الصوماليا إدا يا قادن إدا إد سوقت مركا لو يجي كل حكومة دي مختلين سما إدا يالنس برتنا يجوا ما يكونوا قرصاهم حكومة محي إدا ويالنس ذلك حكومة هراء كتير اللي سيولا سعمات صوبان يسيس حكومة ده هربنا إدا لهني مدير عصوت هيبقى غرداوي وحي هرب مدونين فرنا بفرح معنا صح أسعارات كسبحتان كده والله الله حكومة مال هين حكومة ضد كلا شقي ضد كشقي هدمية كشقي دبعتي كشقي هل كسوق جالسي مدوني وحينا كنا قضيبك ونكسو قدمي هدي دي وحاصل فرفرة لنا هذول حكومة بقى تبديو يموسى كي يمديو حاسنين كده عيب نقول قنصة شاف تشرب نمر بوقا أيو دي مو لسه اللي تسيمر مو لسه تن آدم والله الله حكومتنا قيب بدي إيدا كوي يلانسا لكن إيدا وقدن ده حكومتنا كل يد ما هينتي حسيت بلاد حكومته فريدة ماشي فريدة كتير نسوي شوكتي ولا قصوا ساكروا واي هو حالة دي حقوق بس اسكتي صومالي ولا محا صومالي كيا تما عشان تجي صومالي تجي اسكتي إنك كسران كوتش عطينا كسو سرائر شاب كان واحد كده بيده ولا وجايو إنك صوتش ما كسب محنا برشة كجودهن gudin hay mad goyseen bul haddana barkay kugu jiray marka waxa weeyaan gooch cad ka soo bixitaankeeda iyo la saanad soo bixitaankeeda xadka baneynteena gudinta xukuumadda kamid dalkeen kamid uma dib u goysayo dib waxa weeyaan jartaanka lahayd taasna iyadna waan ka dhamaano way naga soo dhamaatay xukuumadda cusub ay noo dhalatay xukuumadda cusub dhalatay walow xilligeeda ay ku soo hayatay ra'iisul wasaaruhu yimaado ay farxumad tahay iyada dabray ku noqonayso haddana waxa muhiimad waxa weeyaan hadda imika dalka sideen u difaaci karana su'aasha meesha talada anigu noqomayno gudintii ku jirtay waxa weeyaan barkay ku jirtay goynaysa ma noqono aanu ka mid noqomayno xukuumadda waxaan leenahay waan kula difaacnaa dalka kula difaacnaa siyaasad cad qaata istaraatiijiyad cad qaata Abdiraxmaan waan garab istaagana dalkan soo noqon waan ku garab istaagana dalkan iyo dadkan sidoo midoos milaayeen haddii xeelad tahay ayaa haddii xoog tahayba laba jeer waan ku garab istaagana laakiin waxa weeye muhiimadu waxa weeye والله من ديريا فلان مهمته حوي سيدين دالكي أنو دفاعي كرنايو حكومة لو قريب استاي كريا بيت ما تتحلى لكن waxba eedamayna borto eed hino tobaysay ninkaas haduu dhul Soomaaliland agta soo dhigo xukuumadda istiraatiijiyad cad ka qaadan weydo waa dhibaato dalka haysan ka mid tahay ceebtana xukuumadda saaraysa iyadana mas'uul ka noqon way saad la socoto Qardaawiyo xukuumaddan cusub waxa u dhamaaday boqolka cisho u dhamaaday sidaad u aragtaa boqolka cisho xukuumadda u dhamaaday iyo hogaaminta madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro wallahi de boqolka cisho markaan si fiican u faafahin doonaan ka jawaabi doonaa boqolkeeda cisho
wax ay ku wanaagsan tahay waxay ku xun tahayba laba jeer buu jirtaa waxay ku wanaagsan tahay oo boqolkii maalmood hore waxaan isgarab dhigi doonaa marba ayaan isbarbar dhigi doonaa boqolkii muuse hore iyo boqolkan waxay markaa ku xun tahay markii waxay ku wanaagsan tahay laba jeeraba mar baynu aad u sheegi doonaa laakiin tusaale kale imika arrimaha gudaha oo kale laba kala qaaday arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda laba siyaasadood istaraatiiji kala duwan ka qaateen xukuumadda imika cusub arrimaha gudaha ku amaanaya talaabooyinka qaadeen xukuumaddu boqolka cisho arrimaha gudaha waxa weeyaan waa top way aad bay wanaagsan tahay laakiin waxaad moodaa siyaasadda arrimaha dibadda ninka wasaaradda arrimaha dibadda la geeyay wasiirka ah iyo inaanay ahayn dad waxa weeyaan aqoonteedii way aragnimadeedii le wasaaradda arrimaha dibadda aad baan uga dhimanay siyaasadda arrimaha dibadda waxaad moodaa in Chinese iyo badan oo xukuumaddii hore soo sallaxday oo wanaagsan oo u baahan in goolkaas la dhaliyo oo si fiican boqsashada looga shaqeeyo u baahan daba joogteyn iyo waxa weeyaan ilaalin u baahan in albaabadii xukuumadda hore furtay arrimaha dibadda in halkii laga sii amba qaado oo aan la dayacin Chinese-da meesha yaala Chinese badan baa yaala hirdan badan baa yaala u baahan wixii aynu haysanay ilaa goobihii buqacadihii istaraatiijiga ilahayna dhigayna iibkeen u baahan xukuumaddii hore waxyaabihii ay ku dadaashay waxa weeyaan alfaafkii wax walba inoo yaaleen waxay moodaa in siyaasadda arrimaha dibadda imika xukuumadda cusub ay qaatay inay weakness badan ku jiro aan filayaa in wixii dib loo masaxayo taariikhdii hore dib loo masaxayo marka siyaasadda arrimaha dibadda kale waan ku dhalilayaa siyaasadda arrimaha gudaha kale waan ku amaanaya dalka xasiloonida ciidamadii madaniga ahaa loo qarimeeyey dadku waxa weeyaan dadku waa loo yaro waxa weeyaan loo galay qawowga loo dareemay intaasba waan ku bogaadinaya waayahay maxamedow maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhaliilo xooggan loo jeedinayay maariyaha wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa iyadoo lagu baaqaybay in dowladda hoose loo iskayo wakaaladda biyaha sidaad u aragta adigu eedayntaa loo jeedinayay maariya daarad niyow maarayuhu de waxaan filayaa malaha waa dadka ninkeeta ugu shaqada badan leh dowladdii hore iyo dowladdanba ninkaasi shaqadiisana waa ka adag yahay waxa lagu wareynayana dee weli maan fahmin anigu qof baa dee shaqadiisu intuu gaabgalo la idhahdaa waxa weeyaan ninkaa shaqadiisu ma qabsanayo waxa lagu haystaa ololihii hore fikraddii hore kulmiyey haddii aad raxmaan doortay oo daayey niman uu mashaariic ka jaray baa daba socda sida igu maqaalka shirkadee uu ergey ayay dee dad badan ku erganayaan weliba si reeraysan baa loo soo wareegaya oo ma aha dadba mucaaradku ah maaha dad caadiya waxa weeyaan waa qabaylo dhammaystiranba sideedii iyagoo guuraya u yimid oo ninkan uu dagaal ku hayo taasna waxaan leeyahay haddii ninkaasi haddii shaqadiisa u qabsan karo waa Abdiraxmaan uu soo fasaxi karaya shaqadiisuna qori karaya ninkan haddii lagu haysto shaqadiisa haddii si deegaamisan loo haysto haddii si deegaamisan loo haysto ninkaasi dee deegaankiisa waa la garanayaa oo dee garba la tusaa maarayo biyaha sadaqo bixiya maxaad ka wadaa maarayo biyaha sadaqo bixiya maxaad ka wadaa biyaha mulkiyadda biyaha ma marka si qarmaysan loo hadlayo mise waxa weeyaan marka si deegaamisan loo hadlayo haddii si qarmaysan loo hadlayo biyaha waa dee waa national issue si biyaha loo wada heli lahaa waa la baadi goobaya waa laga wada shaqeynaya marka si deegaamisan loo hadlayana biyaha maarayo sadaqo ku bixiya cidda sadaqada ku cabtaa marka waxa weeyaan biyaha sadaqada ugu timaadana haddii dee ay joojin waayaan wax qof sadaqa qaadan sadaqa la siinayo oo waxa weeyaan aflagaade iyo xoog iyo muran iyo qabqab ku soo gelaya weli ma arag ninka miskiinka halkaa joogee kunku shilin la siinayo dee si adab loo qaataa u duceeya biyaha haddii soo gaadhsiiyo biyuhu aad cabtaan nimankan hadlaya haddii biyaha cabbaan ee maarayaha dhaliilaya biyuhu sadaqay kugu soo gaadhaan u ducee maarayaha u ducee dhulka ka soo baxaan u ducee si ilaahay u barakeeyo biyo badan oo loo helo laakiin xoog iyo waxa weeyaan waraawtaag iyo halka hal la geeyo iyo halka hal la geeyo waxba cidna kagama faa'iideyso waana wax 30 sano ragaadiyeen fool xumeeyo weeyaan waxa ku soo koobaya dagaalka maarayaha lagu hayo dhulka haladhi laba qolo waan la hadlaya qolada mashaariicda laga joojiyey iyo qolada iskii u kacsan si deegaamisan u kacsan labada qolo waan la hadlaya haddii la dhigi waayo dagaalkiisa haddii la dhigi waayo dee waxa filaya maaha dee keligii maaha maarayahu dad badanna dee fariisu tirsanaya intaasaan isaga leeyahay waayahay maxamedow biyaha magaalada hargeysa ama wakaaladda biyaha ma waxaad u taqaanaa inay cid gaar iska leedahay wakaaladda iyo biyihaba miyuuna qaranku mas-uul ka hayn may qaranka mas-uulka ah hadda maxaad u leedahay biyahaas daqa lagu dhigay qaranka mas-uulka ah hadalkaasi soo gafa muuqda qadaawo maya gaf maaho
waxaan filayaa biyaha waan ku kala saaray waxaan ku ninkaa ma si deegaamisan loo soo weerar mise si qaramaysan oo ninkaa waxba lagu haystaa shaqadiisa ayada wiilkiina isku jiraayo la haystaa leeyahay ma shaqayn kartid haddii taa lagu haysto waa gar baa loogu leeyahay haddii se si deegaamisan loo soo rarayo laleeyahay halkan ka qaada halkan geeya iyana biyuhu sadaqay noqonaya sadaqada ninka bixiyana waa loo duceeyaa